imisaan arkaa dhalinyaro xooggan markii xooggii hooyadood ay qaateen markay qaateen anfacaadii iyo ay qaateen hooyadood wax walba ay ka qaateen oo la soo koriyey iskiinta raaxadeedii oo dhan ay u hurtay ay ku daashay ayaa markay xoogaysteen oo la rabay inay hooyadii xambaaraan hooyadii u qabeeyaan hooyadii madaxa u salaaxaan hooyadii u riixriixaan u adeegaan khaadim u noqdaan ayay leeyihiin uf ay gacmaha ku sayraayaan ayay hooyooyinkood guulguulayaan hadal hooyadii ma dhihi karto way baqaysaa gabadheeday ka baqaysaa wiilkeeday ka baqaysaa hooyada haddii hadal ay dhahdo inuu ilkaha ka daadiya ka baqaysaa imisaanu aragnay haddana wuu tukanayaa ilaahay buu allaahu akbar u leeyahay waa xaqii koowaad xaqii labaadna waa kan way baqaysaa hooyadii wiilkeeda lama hadli karto xumaanka ma celin karto wanaagga uguma yeeri kardho falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa ha gulgulin hooyadaa waa laba shay oo laynaga fogeeyey waqul lahumaa qawlan kariimaa qowl wanaagsan dhe hooyada way mudan tahay way leedahay xaqa wallaahi way leedahay hooyada hadal wanaagsan dheh dadkii kale ee aanan muslimiinta un islaamnimadun idin dhexaysay bal insaannimadun idin dhexaysaa waxaa la leeyahay waquluu linnaasi xusnaa dadka kale waa gaaladii iyo muslimkii hadal wanaagsan ku dhaha maxaa wacay kelimada wanaagsan waa sadaqa miisaanka maalinka qiyaamay kuu fuulaysaa laakiin hooyadii oo kaaga dhow xaqa labaad ah ayaa lagu leeyahay waqul lahumaa qawlan kariima hadal wanaagsan oo qalbigeeda farxad geliya ku dhan in badan bay hooyada qalbigeeda murugay oo ay murugootay oo ay walwashay oo ay ooysay oo ay ceelkaabisay siday rag kaaga dhigi lahayd siday kuu korin lahayd khayrka aad uga fiicnaan lahayd siday wax kuu bari lahayd siday tarbiyadaada iyo akhlaaqdaada u wanaajin lahayd hooyo wax loo dhigo wallaahi inaanay lahayn waxa la ooyayo hadalka aan sheegayo ma aha laakiin waxaan sawiranayaa oo aan arkayaa in hor fadhiya hooyooyin badan oo da' 70 80 xanuunsan oo jooga qaxootiyadii oo jooga meel runtii nabad aanay ka jirin madfuucu dhacayo meel aan hooyadii aanay heli karin wax u adeega aanay heli karin wax dabka xataa u shida aanay heli karin wax biyo u keena bal hooyadaa aanay heli karin biyo nadiif oo ay cabto dhoobada ay cabbaysaa meelay harsata aanay heli karin cirkaasaa u saqaf ah oo guri ah dhulkaasaa u sariir ah dhul ayay jiiftaa waxaan arkaa hooyo miskiin ah oo gurguuranaysa in ay dabshidato in ay soo qaadato weelyar in ay soo qaadato jikada ay gasho aawo ciyaalkeedii 5 ama 10 ayay dhashay aawo xaggay ka baxeen orobay joogaan waa raaxaysanayaan gabdhii u adeegayaan reero kale u shaqaynayaan miskiintii dhashayna waa taasa halkaasay fadhida وبالوالدين إحسانا gaari qurux badan oo 1 milyan la gadaayo ku socda hooyadiina guriga uu dhisi laayahay dhar buu ku xiri laayahay way arxamada hooyadii way qaawan tahay markaad fiirisid sawirkeeda waxaad moodaa waagii dhagxaanta inay joogtaad moodaa waagii cawska iyo qashinka la saaran jiray cawrada lagu asturi jiray inay joogtaad moodaa hooyadii iyadiina gabadhu waxay xiran tahay dhar xariir ah dahabkii meelay dhigta la'dahay ilmaheeda waa kuwaana oo siday u burburan yihiin u qurux badan yihiin waad yaabaysaa hooyadeedna waa taa miskiin halkaas ku hoyaysa aakhirad cadaab baa dambeeya wallaahi cadaab baa dambeeya cunada meel la geyna la yahay talaajooyinka buux والله واحد دمبي والدكي أنا والدكي halkaan ina keenay nolosheena ka dambeeyayna halkaa uu ku gaajiyay yahay
والله الزقوم بانو دمبه زقوم كي أكشي كينا يا إنو دمبه إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وحا إنو دمبه رسولك الأولى صلى الله عليه وسلم هدي لبعك من الزقوم كأدون كل وسوري لها ولبع هدي الوسوري لها عالم كأردن لك كنا ننشر الله بالخير وقبل لها وبابي لها وإنما لها يدي الكود وهل لبع هدي أدون كل وسوري لها كوربو ليه كاللوغة لقاء النديسة قادة يقرع ذي عشد لك عناية بل كوربو ليه بانك يساقا والدك أين قلنا فإن